asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal wacan oo wanaagsan meel walbood caalamka aad ka joogtaan halkani waa shaafi media aniguna waa shaafici shiicali honesty aan ku bilaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi bare ayaa maanta daahfuray qorshaha qaranka ee kaalinta haweenku ay ku leeyihiin amniga iyo xasiloonida dalka oo ay soo diyaarisay wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka. ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa ka hadlay munaasabadaasi ayaa si qoto dheer uga hadlay doorka muhiimka ee haweenka soomaaliyeed ay ku leeyihiin nabadgelyada amniga iyo gurmadka abaaraha. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi bare ayaa tilmaamay in si wadajir ah loogu istaago sidii loogu sifayn lahaa kooxaha argagixisada ee u taagan daadinta dhiigga shacabka soomaaliyeed. ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa mar uu ka hadlayay weerarkii dhowaan kooxaha argixisada ay ku bartilmaamsadeen dadka shacabka ah ayaa halkaasi waxa uu sheegay in uu murugada iyo dhibaatada uu la qaybsanayo dadkii lagu gumaaday gobolka hiiraan oo dhibaatada ugu geysteen kooxaha argagixisada ah. ra-iisul wasaare xamse cabdi bare oo halkaasi ka jeediyo khudbad dhinacyo badan taabanaysay ayaa hadaladiisii waxaa ka mid ahaa: laba cadow baa jira oo aad iyo aad u culculus oo haddii aan alle ka sakow gabar Soomaaliyeed loo helin aan hubo inay adag tahay inaan ka samata baxo. labada cadow mid waxa weeye waa ka abaarta. ilaahay baa keenay gurmashada iyo in la isu naxariisto iyo in wax la isa siiyo iyo in darisku isa saacido waxaa asal u ah gabadha Soomaaliyeed. sidaa darteed dadka Soomaaliyeed naxariis bay u baahan yihiin iyo inay isu naxariistaan. naxariiska santarkeeda iyo meesha ay fadhidana waa gabadha Soomaaliyeed. waxaa la rabaa gabadha Soomaaliyeed maanta naxariistii lagu yaqiinay ay shacabkeeda iyo walaalaheed u naxariisan jirtay maanta laga rabaa. maanta gabdhaha Soomaaliyeed aan ka rabaa in ay dadkooda u gurmadaan oo ay cunto gaarsiiyaan iyo biyo ayaa laga rabaa. dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan haddii dadka caalamka inoo soo gurmaday ay leeyihiin war ha loo soo gurmado way dhimanayaan, innagu waan isu gurman karnaa, aan isu gurman. waxaan rabnaa inaan isu gurman. suurtagal ma tahay muslimiin baan nahay, boqolkiiba boqol baan muslimiin nahay, laakiin waxaad ogaataa nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi mathalu lmu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaadufihim kamathali ljasadi alwaaxid ida ishtakaa minhu cud tadaacaa lahu saa'iru ljasadi bisahri walxuma. yacni qofka muslimka ah la yidhi muslim xataa Soomaali uu ka weyn yahay. qofka muslimka ah qofka kale wuxuu u yahay waxay marka la isu fiiriyo waa hal jidh oo kale, jidhkaaga oo kale weeye. hadday far ka xanuunsato habeenkaa inta kale way soo jeedaysaa. farta keliya xanuunsanaya ishu ay iska seexato suurtagal maaha. waxaan qabaa oo ila tahay dadka Soomaaliyeed sidan aan ku jirnaa maalin horaan sheegay anigu caqliga weyna fooraraayo waa inuu caqligu toosaa. waa inaan lugaha dhulka hoos u leexinaa, madaxuna kor istaaga waay. intaa marka laga tago cadowga labaad waa kan isla ognahay hadda laga hadlaayay oo nimanka la baxay shabaab la yidhaahdo waay iyo wixii la halmaala. waxaan nahay dad muslimiinaan nahay, sideedaba maxaan ku qanacnaa shabaab inay yihiin shayaadiin oo ay ilmihii jahanname yihiin oo xadabu jahanname yihiin oo shayaadiin yihiin oo ay waajib tahay in lagu jihaado oo lala diriro? ma daliil baan u baahan nahay? midka shalay hiiraan waxaad aragteen ka samaynayay maa daliil u baahan in lala diriro? ma in kitaabka iyo qur-aanka wax looga raadiyo u baahan yahay? guushii way bilaabatay. guushu inay bilaabatayna waxaan ka garan meeshaan ka soo gelayay raadadkii guushaa ku yaallay. gabdho Soomaaliyeed oo buskidkii iyo muqmadii iyo biyihii diyaariyey baan ku soo maray meesha oo ciidamadoodu daama. waxaan hubaa inay bilaabatay marka
mar hadday gabdhaha Soomaaliyeed bilaabaan waa bilaabatay guushii iyo in laga adkaado cadowga waa bilaabatay meel aan dib ugu laabanno male mana ka laabanayno waa in la iska celiyo waxaan halkan runtii uga hambalyeynaya marka koobaad waa u tacsiinaya guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee ay nimankan dhibaatada ku hayaan gaar ahaan ilmihii iyo hooyooyinkii iyo walaalihii ay ku xasuuqeen gobolka Hiiraan iyo meelo ka mid ah Galguduud waxaan leeyahay inta dhimatay waa shuhado Allahu naxariisto inta dhimat dhaawacana Allahu boogadhayo waxaan laakiin ugu hambalyeynaya sida ay uga jawaabeen oo ilaa hadda ay uga jawaabayaan shacabka Soomaaliyeed beelaha Soomaaliyeed wiilasha Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeed ayaga oo kaashanaya oo runtii weheshanaya qaybaha kala duwan ee xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waad mahadsantihiin jawaabaha ay bixinayaan iyo sida ay soo celinayaan runtii way ku mahadsan yihiin xukuumadda iyo dawladdu way garab taagan tahay jawaabaheedana way arkeen haddana way sii arki doonaan wayna sii garab taagnaanayaan ilaahay idinkiis saakadan hadda waxaan ugu hambalyeynayaa taliya xijaar waa joogaa inay duulaan qaadeen oo meelo adag oo ay fadhin jireen oo ay Basra ka mid tahay ay ka xoreeyeen oo ay fogeeyeen waliba eryeen insha Allah wayna sii daba socon doonaan waana ugu hambalyeynayaa way ku mahadsan yihiin inta marka laga tago guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo gobol kasta ay ku nool yihiin waxaan u soo jeedinayaa gaar ahaan magaalada Muqdisho kuwa ku nool ka yihiin walaalayaal waxaan galay dagaal baan ku jirnaa marka dagaal ku jirtana cadowga waa xanuujin waa la xanuujiyaa cadowga marka dagaal ku jirto markuu xanuunsado waxaa lagu yaqaanaa reactionkiisa iyo jawaabta uu bixiyo hadday noqoto mid naflacaariya oo waxa hadda dhacayo aragteen macnaheedu cadowgu uu dhintay waa daciif ha ka harin waxaan rabaa inaan halkan ka sheego mar haddaynu dagaal galloon goosanay dagaal mar haddii aan cadowga xanuujinay waxba inaga soo gaaraya dadka Soomaaliyeed waa inay ogaadaan cadowgu jawaabu bixinaya xanuunaa imaanaya xanuunaa waa inaan ku talagalnaa quraanku ilaahay ku sheegay in takunu ta'lamuuna fa innahum ya'lamuuna kama ta'lamuun haddii aad xanuunsanaysaan saxaabada saas lagu sheegay haddaad xanuunsanaysaan oo dagaalku aad ku dhimateen oo ku dhaawacanteen waxaad ogaataan ayaguna way xanuunsanayaan sidaas oo kale way ku dhimanayaan way ku dhaawacmayaan laakiin maxaad dheertiin watarjuuna min Allahi ma la yarjuun ilaahay baad ka rajaynaysaan idinku waxayna ayagu ka rajaynayaan maxaa jira ayagu waa zaalimiin ilaahay bay ka soo horjeedaan masaajidka kii ku tukanayay dilayaan gabadha Soomaaliyeed bay dilayaan cadowga Soomaaliyeed bay dilayaan dawladnimaday hor taagan yihiin noloshay hor taagan yihiin Soomaaliya inuu cadow haystay go'aan ku gaareen oo isa ahaato waa la soo diray ma aha wax oo ha u maleynaya iska soo baxay ma aha sidaa darteed dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay haddii ay qarxiyaan haddii ay toogtaan hadday dilaan waxaad dagaal baad ku jirtaan cadow baad la dagaalamaysaan waa xanuun ka mid ah xanuunada idinka soo gaaraya waana laga gudbi doonaa markaad jabisaan haddii ilaahay waana jabinaysaa halkani waa Shafi Media Production oo ku faraxsanahay inaad la soo booqato oo aad saaxiib la noqoto barnaamijyada aan idin soo baahino kambalka furo oo subscribe-ka inoo saar annagana waxa sharaf noo ah mar walba la socodkaaga geed baa loo fadhiisan jiray geed baa loo fadhiis